mar walba waxay ku hamin jirtay in ay imaado Soomaaliya. Hadda waxaan rabaa like Soomaaliya u noqdo arko wadankay waaye. Ugu dambeyn maanta waxa lagu soo dhoweeyay magaalada ay u dhalatay ee magaalada Muqdisho. maanta uu koow aan soo noqohayso aad iyo aad u faraxsan yahay. Wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliya ayaa ku soo dhoweeyay garoonka Aadan Cadde International Airport. aad iyo aad ugu faraxsanahay xilli aroortii hore inaan soo kala maanta laboorka Aadan Cadde oo ku soo dhaweyno gabadheena Ramla Cali oo imaatay dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho. Wow, maxaa ka fiican adigoo wadanka 9 jir da'daadu ay tahay ka baxay in aad ku soo noqoto adigoo 20 jira Soomaali guul aad u soo hooyisay bilada dahabka adduunka ugu qaalisan aad u keentay. sidaad la socotaa magaalada Muqdisho waxa lagu soo dhaweeyay gabadhii feeryahanada ahayd ee Ramla Cali oo ku guuleysatay bilada dahabka ee adduunka mideed ugu sareysay ee qaybta feerka. waxaan rabaa in dhaho like how do you say lo dhaha guushay waxa waa guushi Soomaaliya. gabadhan waa la socotaan daqiiqadii 2024 waxay ka qayb gashay feerka adduunka ee gabdhaha waxayna qaaday kaalinta koowaad ama waxay qaaday guusha feerkaas waxaan la siiyay bilada ugu sareysay ee adduunka. aniga videogeeda waa daawanay waxaan ka helay markii ay la dagaalamaysay gabadha Itoobiyaanka ee si xun wadnaha ay ugu toogatay. أبو ودعي واندوليا وعدو قتلكو ينكو دوليا إيدي ما إلا نقيرد وحق. mar walba waxay ku hamin jirtay in ay imaado Soomaaliya. ugu dambeyn maanta waxa lagu soo dhoweeyay magaalada ay u dhalatay ee magaalada Muqdisho. Mogadishu waa shidan tahay maalmahan Sultan Food Group cuntada oo fiican waa Mogadishu ma sugi kari intii aan tagi karo. نشكو بربارو مقع إيغو بحي مقدش معان ميشا ليغو دوبي. inkastoo ay haysato baasaboor Amerika ama baasaboor Mareykan laakiin marnaba isma lahayn qadiyada Falastiin waad ka tanaasuli doontaa. markii ay guuleysatay Ilaahay uu guusha siiyayna waxay ku dhawaaqday Falastiin free. Say one more thing. Free Palestine. ayadoo ujeedkeedu uu yahay in muslimiinta Falastiin ay guuleystaan. qof kasta oo muslim ah Soomaaliyeed wuxuu taageersan yahay guusha Falastiin. wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliya ayaa ku soo dhoweeyay garoonka Aadan Cadde International Airport. Ramla soo dhawow ku leenahay adiga iyo xaajigaaga ku soo dhawaada dalkaaga hooyo anagoo og adigoo mar hore ka tagtay wadanka oo ku dhalatay Muqdisho maanta Soomaaliya dhan gacmeeda ku furan tahay saqiir iyo kabiirba ee kuleeyeen ku soo dhawow dalkaaga insha Allah waxyaalo badan iyo activity badan arki doontaa oo dalkaaga kugu soo dhaweynayo. sidoo kale ragga soo dhaweeyay waxa kamid ahaa Ramla waxay muujisay in gabdhaha Soomaaliyeed ay yihiin gabdha adkaysi badan fagaaraha caalamkana wacdar ka dhigi karo. guushaas gabdhaha Soomaaliyeed guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay u soo heysay mid iloobi karana ma ahan. waxay muujisay dunida caalamka in gabdhaha Soomaaliyeed yihiin gabdha ka hana qaadi karo jawi walba oo ku tama dunida bini'aadamka wax ku nool yahay. waxa joogtaa dalkaaga hooyo waxa u timid dadkaagi waxa u timid maxaa la yiraahdaa walaalahaaga Soomaaliyeed guud ahaan shacab iyo madax sidii hore loo sheegay waxay kugu taageen in calaamaha qoyan ay ku ruuxaan calankana ay ku sidaan sida calanka Soomaaliyeed ugu babisay fagaaraha caalamka ee feeryahanada ku dagaalamayay. guusha asooyisay waa guul qaran una taagan mid maanta mutaysatay inaan kugu soo dhaweyno garoonkan. markii ay ku jirtay geemka ama dagaalka ay ku guuleysanaysay ama feerka ay ku jirtay waxa aad u taageer dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo oo intaasoo kun oo qof ay ka soo qaybgaleen ilaa iyo waxa la qiyaasay dadka ka soo qaybgalay in ay la egyihiin 100,000 ilaa 200,000 oo qof oo Soomaaliya. waxay sheegtay in Soomaaliya imaanshaheeda aad ay u faraxsan tahay mar walbana ay hamin jirtay in mar ay wadankeeda hooyo ay imaado dadkii ay soo salaanto ay soo waxa qaraabadii dadkii ay u tagto. qof oo qurbaha ku soo koray in badan qurbaha soo joogay afkii Soomaaliga waa kulmay wali laakiin way jabsanaysaa oo wali raadkiisi waa ay haysaa oo wali
ugu dambeyn markaad wax noqotid magac samaysid adduunka saamay ah ka yeelatid kaalimaha koowaad ee feerka gashid waxaa yeelan doontaa tol badan qaraabo badan iyo suncad badan maanta waxay ka casuumin tahay ama beri ay ka casuumin tahay madaxtooyada Soomaaliya waxayna u casuumin tahay madaxweynaha Soomaaliya waxaan la siin doonaa bilada ugu sareysa ee Soomaalida ay bixiso waxaan siin doonaa madaxweynaha Soomaaliya isbuucyadan ugu soo aadan sida ay sheegeen agaasinka madaxtooyada waynu qalantaa in la siiyo maadaama Soomaaliya ay dhiigeeda u daayisay dhacankeeda u daayisay xilli ay baasha ay ku adag tahayna ay ka difaacday Ethiopiankana wadnaha ay ka turtay Ramlo waxaan leenahay guuliso jir oo joog assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ahay Mr. Kilmatani haddii aad video ka heshay fadlan like sar sina share garay ciao